lacag loogu talagalay in lagu kala furfuro doorashada sidii lagu heshiiyay uga socoto dalka oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Haddaba lacagtan halkeebay ka timid yaa mas'uul ka ah. Muuqaalkan ayaan ku faahfaahin doonaa ee daawada soo dhawow follow-da page-keena Fagaare Production. Laygareysiina sheergare oo gaarsii saaxiibo sidaadoo kale u wanaagsan jecelna inay helaan xogaha ugu dambeeya ee dalka. Airport-ka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa lagu qabtay lacag lagu qiyaasay ku dhawaad 5 milyan taasoo loogu talagalay in lagu jahwareeriyo dadka Soomaaliyeed iyo doorashada sidii loogu heshiiyay iyo doorashada sidii lagu heshiiyay ku socota. Lacagtan oo sidan xogo muhiim ah ka helnay Ra'iisul Wasaare Roble iska soo hormariyay ayaa waxay dhaawac weyn ku noqonaysaa dadka iyo dawladda Soomaaliyeed. Imaaraadka oo caan ku ah kala gaditaanka siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyada dalka ayaa wuxuu faa'iido weyn ka helayaa isku dhaca madaxda dalka ugu sarreysa. dawladda Imaaraadka ayaa 4 sano ee uu xilka madaxtinimada hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa lagala dagaalamay ka dhex ganacsiga siyaasiyiinta dalka iyagoo awoodooda ugu badnaa Imaaraadku ay saareen dhinaca maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland oo iyagu saameyn ku leh awoodda dalka halkaas oo ay ka dhigteen fariisimaha ay kala dagaalamaan madaxda dawladda dhexe. Intaas oo dhan marka laga soo gudbo waxaa hadda hankeennii iyo dawladnimadii inay Imaaraadku dhaawacaan ay u soo adeegsadeen Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kaasoo hadda noqday shakhsiga wadada u ah Imaaraadka iyo xulufadiisa. Roble oo sidan wada ognahay Abu Dhabi ku sugan ayaa markii labaad raaligelin buuxda siinaya dawladda Imaaraadka. Kulamo kala duwan oo uu la qaatay waxaa bayaan Imaaraadku ay soo saareen lagu sheegay inay aqbaleen raaligelintii xukuumadda iyo sidoo kale qodobo badan oo la isku afgartay. qodobadaas dadka Soomaaliyeed loogu sheegay raaligelin iyo iskaashi labada dal ayaa waxba kama jiraan taasoo ay ku qarsoon tahay lacago iyo heshiisyo ka qayb qaadanaya dib u dhaca doorashooyinka dalka musuq iyo kala dilitaan madaxda Soomaalida meel kasta oo ay matalaanba. Imaaraadka ayaa dagaal weyn ugu jira sidii uu musharaxa ay wataan uu doorashada dalka ugu guuleysan lahaa iyagoo taas bedelkeeda wax walba u maraya. Imaaraadka madaxda ay Soomaalida u adeegsanayaan ayaa waxa ugu horeeya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble, Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland iyo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo ah hogaamiyaha Jubbaland oo intooduba ku sifoobay xaraashka dalka. Lama oga halka ay mar kale tagi doonto lacagtan uu iska soo hormariyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Muddada uu xilka hayo Roble dadka dhaliishan siyaasadiisa ayaa waxay magacyo ka turjumaya sida uu dhaqaalaha u raadinayo ku tilmaamaan shakhsi ooman oo hanti tabcasho xaaladda dalka ay uga weyn tahay.